maayirka degmada Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi oo saaka xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta waxa uu si adag uga hadlay hadallo shalay ka soo yeeray qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada oo ay sheegeen inay warqad codsiyo u gudbiyeen taasoo ay sheegeen inay xilka kaga qaadayaan gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisii ka mid ahaa jecelahay maanta in halkan waxoogaa ka yarftiimiyo qoraal waraaqay shalay toole qolo xildhibaanay keentay oo waxa weeye iyadoo saacadii shaqada runtii laga baxay oo martidii xil wareejinta joogtay ay nala joogtay hodeel noogu keeneen inaan halkan ka iftiimiyo oo waraaq baaraksan waxa ku saxan 7 xildhibaan waxaana ku mudaysan tahay 20kii bishii Afraad ee 2017 oo waraaq waqti hore 3 bilood ka hore la qoray lama saxay ma hubno imika in xildhibaanada 7 waqtiga la joogay ku wada socdaan arrintan ka hadlayeen xildhibaanadu xilka qaadis maayirka iyo xigeenka xilka qaadista maayirka iyo xigeenku de sharci bay leedahay oo shuruuday leedahay oo golaha deegaankana sida sharcigu dhigayo 14 xildhibaan baa eedayn kara maayirka iyo xigeenkiisa oo xilka ka qaadi kara 4 xildhibaan oo de gidaar ka hadlay anaga xilka naga qaadi kara waxa ugu baaqanaa xildhibaanadaasi in sharciyada ku soo noqdaan sida ka warqabteen mudooyinkan u dambeeyay ayaan daro weyn baan u aragnaa in ragaade umadu dooratay halkay waxa weeye goluhu inta imaadaan wixii dooda ay qabaan ka dhex jeedin lahaayeen in TV-yada iyo de suuqyada been abuur iyo been runtii ay la soo taagnaadaan ixtiraami waayaan dadweynihii doortay ixtiraami waayaan goloweynaha ay kamid yihiin golaha deegaanku 12 xildhibaan buu ka kooban yahay marka laga reebo dhowrka xildhibaan ee farakutiriska ah intii kale waxay mashquul ku yihiin qadaan dadweynaha u hayno in garab joogan xildhibaanada arintooda hadaan hoosta ka xariiqana waxa ka warqabtaan in golaha deegaanka waqtigiisa runtii uu gabagaba ku dhow yahay annaga iyo goloweynaha intiisa kale heshiis waxaanu ku nahay inaanu muddada yar ee kooban ee golaha ka hadhay aanu u shaqeyno si ka adag sidaanu awalba u shaqeyn jirnay duruufo badan oo ina soo maray baa jiray oo waxyaalihii waxaas naga yar habsaamiyeen inaanu dib u saxno wixii aanu sii wanaajin karnana 100% la sii wanaajiyo si golahu uu uga tago wax dhaxalgal ah oo wax weey bulshada wanaageeda iyo horumarkeeda ah taasoo noo balana taasina waxa u baahan tahay guntikiis in fikir iyo waxa weey aqli iyo maalka ummadda aan u hayno inta la xafido si adag oo waxa weey hawlkarnimo ku dhaahan tahay loo shaqeeyo xildhibaanadii waa hadaba kala baxay oo xubnaha aynu arkano maalin walba hadlaya iyagu arrintaa way ka soo horjeedaan wada kale ay marayaan oo halkaan anagu leenahay war ummadina soo dooratay aynu wax dhaxalgal uga tagno fikir kale oo isleeyahay malaha marka horeba golaha deegaanka de aragtidaasi u yimaadeen ayaa ku jira oo ayna waqtigeera xaray ay hantida ummadda faraqabsiin ka helaan taasina maaha wixii aanu meeshan u nimi waxaanu ka yeelanana maaha waxaanu ka aqbalana maaha ummadda waa u dhaaranay waxa ugu dhaaranay inaanu hantideeda u ilaalino daalad ugu shaqeyno halkan inaanu u shaqeyno ummaddaanu u nimiyo inaanu ka shaqeyso runtii ka shaqeysano maanaan iman arrinta kale ee waxa weeye been abuurka ah ee shakhsi weerarka ah ee dhammaan ka soo horjeeda shuruucda dalka dhaqanka iyo diinta islaamka ee nimankaasi caadis runtii talaabaan ka qaadi doonaa waanu anshax marin doonaa dhawaana insha Allah taala haddii iyagu xishoo waayeen sharciga ixtiraami waayeen waa sharciga la marin doonaa goluhuna runtii go'aan buu ka qaadan doonaa Farxaan Abdaaw Ciise on Cable TV gobolka Gabiley